بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا وعند وديال وعبد الشكور الأحمد ودين سجيدين برنامج كا مدشة لنا يرى التلفزيون كقرن كصومالي برنامج كتبات كانوا حمرتكوا مصطفى ورسام سبرية أو قراء لنا يرى أو حكا قري وحيبك ردوان وكوجرو نظام كفدرال كصوماليا كتبات كان برنامج كا وحنكوا يجدونا فدرال كا لنا يرى مدام صوماليا نظام كهذا كجرو الدولة نظام فدرال نحن يجدنا نظام كفدرال كا إلى اليرد سيد ورجع قالي الدوان هذا بعيدمو هرا مصطفى نسولي ويلكم مصطفى هذا ما صنت مصطفى وقرن بال بوك أيات كقرتي نظام كفدرال كا سيد إيشكتي مركا بوك جاس محاد عوان وقالكت وما صنت ولا الكي هذا وده واحد برنامج كمدرسة لليرد التلفزيون قرن كالصومالية أنت بوك جاس وبوك هلا نظام كفدرال كالصومالية أنت بنقول كسارة بينك أنا ونحسنين النظام الفدرالي وياك كصومالية وحلي هذا فدرال السنقي وأنا قبل أتريد كذا أفغانية الصوماليات وأنا كنول إبراهيم سوبيرة وهو أهان من بنساء وأنت سوى كل عشتين فدرال السنقي الله خاطر لدى السوري سيديرون هذا أقول سهل بمرتين أنت بنقول كسارة لبعض نظام مقادير الدسارت فدرال الصومالي لبكم ولا هاي لأنه وضع صفر كصباح marka nidaamka federaaliga iyo sifil warkaas masla jaan qaad kara ayaa inta badan focus ku saaray waqti marka ma tixraaca gabayga buu ahaa wax kugu dhilina buu qorto mise aragti kale oo aad qabtaa jirtay buuga inta uusan gabay tirin waxa ay ku jirtay xilliga 2014 ee xilliga la sameeyay dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo xilligaas dowlad goboleedyada badan sameeyay marka ani fikir ay jiro marka abwaankaana waxaan habeenkii ka dhageystay idaacadda isagoo gabaygan tirinayo markaas waa la dhacay runtii kaas baan waxaan go'aansaday in nidaamka federaaliga uu yahay waxaan u qalmin Soomaaliya in mudanta inaan wax ka qoro maadaama wax kale aan waddanka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya aan ugu heli karin isa jirin inaan ugu heli qarankaas oo aan ku anfacno Soomaaliya waa gartay nidaamka federaalka hadda waa nidaam la soo qaatay xilligii 2003 ilaa 2004 markii la soo dhisay dowladda ku meel gaarka ahayd uu hogaaminaya Allah u naxariisto madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf nidaamka dawliga ah maanta jiran oo asaga marka dhinacan oo ku wanaagsaneen ayaad eegtay laakiin dhinaca wanaaga ah sidoo wanaagsan ma eegtay runtii waan sheegay federaalka faa'iidooyinkiisa waxa ka mid ah يعني أنت بدل أودي بباهيس أودي بروح كتجسا central government دولة اللي حكتجسا دحلية بفرق دولة اللي بترجع جرتي أودي حكم من البوليسية لكن هدي للسنة نظام كفدرالي أنت أودي بلا لاعي قف كاستديان كيس أسوي جوبا أيوة وكل اللي هذيك عافمتك هذيك كونترا وحبرشان أيوة وكل يعني تاسوي في الدين سقف كاستديان كيس وحتياله وكل marka dhanna waa wanaagsan yahay laakiin inta ugu badan dhanka Soomaaliya waxa uu qabtaa dhanka xun in loo adeegsanayo nidaamka federaaliga marka ma fahamka qaldan mise nidaamka ayaa qaldan federaalku waa wax wanaagsan adduunyada badan ugu yaraan 30 dal baa isticmaashan wadamada ugu tungoon adduunyada Mareykanka Russia Jarmalka Ethiopia Pakistan runtii waa wadamada hore modelka waa adduunyada haddana nidaamyada isticmaalada kala duwan tahay waxaa jirta laba nooc oo adduunyada ay aad u isticmaasho oo ah dowlad federaal iyo cooperative federaal dowlad federaal waa nidaamka Mareykanka uu isticmaalo oo ah in awoodda loo dambeeyo central government iyo cooperative federal kun waxa weeye in iskaashadaan dowladda iyo dowlad goboleed ama state iyo central government marka dhibka jiro waxa weeye nidaamka Soomaaliya federaalka ma qeexno lama dhihin central government awood inkastoo waxyaabo gaar ah oo central laakiin waa lagu sheegay in nidaamka federaalku yahay nidaamka iskaashiga ku dhisan ee cooperative-ka ah dastuurka right taas waa sax waa kugu qabaa inuu federaalku yahay laakiin nooca federaalka la qaatay ilaa hadda dastuurkeena ku baxdo يعني تاسينا وحياها اللغة فدية البرلمان كان حتى دولة الصومال كان حتى كان صوص عضل بين قيحان نظام فدرالي وقادمات وقرت مركا حدا مركا ما الصومالية ما دبعت دنيعي إن يعني ففاهين لقيها لا وحي فدرال الصومالية قادتها ودبعتها ما دين كابي كتاجن تهاي ما ضدك الصومالية ذو فهم كا يعني أنا وحكف عن سنة فدرال كايا دب كتاجين ما نظام كفدرال نفتي جيسا دبقة سدي يعني محات قاحي كلا قاحي له. بالشدة عادية الصومالي بقى ده شيء كيستي بكل نظام فدرالي فكرة الصومالي ما يعني وحي كفكرة يعني الدنيا أنا واحد وده مثلا بيش اللي حاله بيش عالك إن ما كحالك لا تنكي السنة اللي هو يدرك الصومالية اللي يريد كان نظام خلاصي لا الدنيا ده اسكو دينا اسكو بقنا اسكو أفا لا تنسى مستير يعني الدنيا
way ugu jahwaay marka dadku waxay ku leeyihiin de federaalka fikir Soomaaliya ma federaalka dad si kale u fahantina wuxuu soo bilaabmay kontumiyada ama xidhmiyada xiriirada aan xukumada qaadin waxaa jirtay xilliyo oo inta badan gobolada Baay-Bakool ee la rabay xisbiyada qaarkood la xidhmiyada inay nidaamka federaalka ay qabtaan xilli kale waxaa jirtay 90 xilliga dawladda ay dhacaysay in yani safiirkii Mareykanka ee xilliga Soomaaliya u fadhiyay in uu dad siyaasiyiin caan ah u la kulmay isagoo u soo bandhigay nooca federaalka kamid ah maadaama waddanka markaas uu kala go'ay rabay oo inta badan jamaahirka Soomaalida ay gobolada dhexe ay soo maray xilli kalena waxa way xilliga 2004 la qaatay nidaamka federaalka qofkii ugu horeeyay laga maqlaan oo ah madaxweyne Abdullaahi Yuusuf Axmed Abdullaahi oo hayste marka fikir Soomaaliya waa yahay laakiin bulshada fikirka ay ka haystaan nidaamka federaalka way marka dib loo eego inkastoo hadda aanan aad siyaasadda uga doodeynin taariikhda dowladnimada markii dowladdii dimuqraadiga ahayd ay joogtay 60kii ilaa 69kii eedo badan baa jiray lalahaa yani inta qoran marka la eego yani Soomaaliya dowladdu waa dowlad dimuqraadi ah laakiin dowlad musuqmaasuqay eedo badan baa jiray dowlad loo jeedinay militarigii markii waddanka ay la wareegeen oo hogaaminayay madaxweyne Siyaad Barre ayada military naftiisa waa la eedeynaya lalahaa ilaa laga dumiyey 1990kii dowladdii militariga ahayd oo jabhada ay ku kaceen yani eed baa socotay nidaamkan federaalka ah ee hadda la leeyahay maadaama Soomaaliya ay ku heshiiyeen dowlad dhexe oo yani oo central ah oo dowladda magaalada Muqdisho wixii dhan lagu soo koobo caasimadii laga hogaamiyo dalka oo central government la helo oo loo bedelay yani in awoodihii la dadejiyo oo dadkii deegaanada ay soo doortaan dadka hogaaminayay dadka maamulayay adeegyadoodii la gaarsiiyo maxaa Soomaaliya maxay ogashahay maxay kula tahay Soomaaliya inay ogashahay marka runtii Soomaaliya aniga waxaan isla yani hal fikir taageero oo leeyahay nidaamka centralization waa nidaamka county Kenya yani federaalna uu ka duwan federaalna ma ahan waa nidaamkii Kenya u sameeyay gumeysiga Ingiriiska waana nidaamkii 2015kii Kenya lagu base gareeyay county-yada waa 48 county ee Kenya intiisa maxkamada qaadan marka county waxa weeye wixii faa'iido u yeelayna waa nidaam federaal ugu dheeyaa laakiin waa nidaam dowladda dhexe u baahinta awoodda nidaamka Nairobi uu adag yahay haddana nidaamyada kale adeegyada qofka sida deegaanka county-yada Wajeer iyo Garissa iyo dhulkii waxa weeye uu dhisan yahay لأنه أديجي مركز أو بنشر أديجي أديجي سيدي دولة النيروبي لو هلاي حكومة النيروبي أي لو هلاي واي لكن هذا نفتي سديل لك يعني ما دام فدرال كبر اللي هو صعب ما هني صار لما ده كرك ولي كيني عكسوا ما هني سو أيضا سو تكلم من نقطة كرت حديدت كعرفت تدير الفيري تكلم من نقطة كرت لكن فكرة كان حسلاي هاي هذا دولة قبل دي وقت جالن شيء نسوي بحنا كو حسب عن سلاي هلا طبعا بحير كون حين السنة هاي نظام كان decentralization وفكر كيجا نظام كان decentralization كهدي لك كان بدن يعني واي هذا النظام كله بدلوا وقتي وبحث حي ويرى أفتل جرسيو دستور كان هذا جرا يعني ذات كله يدي نوع دونيشان نظام وضع كله معموله أما دب سومالي أنتي عقاش هيدا لو بكوني صدحتون كلا صدح دي إلى أفرتي ذات كتشتينا هذا ندب أفغانستان أيضا حتى وحيوبها أنت وقتي اللي جنيو marka kula tahay intii de waqtiga la lumi lahaa hadda nidaamka federaalka wasabo mid awood la baahinaya in yani uu yaraan la qeexo oo yani la isku nooca ugu wanaagsan ee Soomaaliya qaadan karto ee ku haboon in laga fikiro la sii faahfaahiyo runtii waxaa jirta wasaaradaha kala duwan dadaalo ugu jiraan sida ra'yi dibadda u tagaan ruusaanahan wadamada kala duwan waxaan markaas waxaan kula taliyaa in yani nidaamka si loo baahiyo in bulshada dowlad goboleedyada loo tago hadda inta ugu badan nidaamka federaalka waa dhici kartaa adoo Muqdisho inay ka qayb galaan dooda nidaamka federaalka loo baahan laakiin way adag tahay qof dowlad goboleed Ismaaciil jooga ama Soomaaliyeed jooga ama Baydhabo jooga inuu federaalka wax fiican yani marka waxaan aaminsanahay wacyigelin ballaaran in la sameeyo hadda dhimaay nidaamka la bedelo oo waan ogahay dibka laga soo maray hadda 2000 dowladda Cabdiqaasim laga soo bilaabay ilaa hadda waxaa jirta nidaam Soomaaliyeed ku heshiis oo maalinba meel lagu guuray ku meel gaar baa la tagay waa laga soo guuray haddana federaal baa la noqday federaalkii haddana doorashada yani waxaa jirta nidaamkaas waxa weeye nidaam aanan si speed loo wada ordin laakiin si lagu heshiiyo oo Soomaalinimada maadaama waddanku dagaal sokay ka soo baxay marka in bulshada wacyigelin ballaaran lagu sameeyo oo deegaanada loogu tago oo si manaara la qabto runtii aad bay u gaaraysaa baan isleeyahay nidaamkaas dadka laga dhaadhacsiinana waa dadkii deegaanada
gobolladii iyo naga maqan waayo ma aha dadka caasimadda jooga Waay. dadka caasimadda jooga waxay dhici kartaa inay waxyaabo tviyada kala socdaan doodada yani siyaasiyiin ay ka hadlaan laakiin dadkaasi tv ma daawadaan internet ma haystaan facebook ma haystaan way dhalinyarada marka aan usoo daadegno dhalinyarada waxaa la yidhahdaa waa 70% waa iska qiyaas weli ma jirto tirakoob rasmi ah oo dadka lagu sameeyey laakiin qiyaasaha waxay muujinayaan 70 qaar baa 75 leh qaar baa dhalinyarada naftooda waxay leeyihiin waa kasii badannahay laakiin